السلام عليكم ورحمة الله. waxaan u sheegaynaa Soomaali weyn oo dhan ummadda Soomaaliyeed arrintan foolsho xun leh oo gabdhaha yar yar xarka taag la dhahayo raggan aan shaqo lahaynba oo gabdho yar yar oon gaarin waxba lifekooda ku dheelaayo yaa wax ka raadinayo neba eba xarka taag dambe ma u dul qaadanayno Puntlandna waxaan u sheegaynaa mataqaanaa macal madaxweynaha inuu xarka taago hadduu wax qaban waayo nacala waaridkiin ku yaal naadana waayo waxaan aad uga xumahay gabadha yarta saqiirta lagu farxumeeyay magaalada galmudug gaar ahaan galkacyo marka tacsiid tiirayaan la baa halkan ugu direena ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada firdawsa ka waraabiyo ninkii far ku geystana hortiis buu ka helayaa haddaan leeyahay isliinahayna aad baan uga xunaa waan cambaareenna arintaas dawladda madaxweynaha waxa uu sheegaynaa waa in dabgal ku sameeyay ninkaas ay soo qabataa meel ku jira haddii ay gacanta ay ku haysana waa in xaq sharci islaamka ay marsiisaa arintan waa in ku cibro qaadataa in martaba soo laabanin in ku cibro qaadataa ninkaas in la marsiiyo ciqaab aad u adag تعالى وبركاته أنا مقعد عمر محمد حاجي oo ku nool dalka Kenya waxaan aad iyo aad ugu xumahay gabartii yar walaasheeda 12 jirka lagu xumeeyay gaalgacyo wallahi aad iyo aad ugu xumahay taasna wallahi waxay dhigmataa sharaf xumo ragnimada ceebayaan kuwaas wallahi waan u tacsiyeena waalidiinteeda aad iyo aad ugu xunahay nimanka dileen wallahi dawladda waxaan ka codsanayaa in ay marsiyaan xukun adag ee xaqeedu soo dhicin gabartii yarista Aisha سأملينا مقعد عائشة واي نعم عائشة ها وحن كعصنا ناس وصود عن حق عائشة وأنا ما 60 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يوم مقعد أمين وحال كان أقدر يا تعسي تراني وحن أقدر قبل مسكين تهد لو كفصدي لبعث لو جستي عامل كبتلان عام كده هذا مقعد قال كعيو waxaan halkan tacsiid uga dirayaa familkeeda qaraabadeeda iyo Soomaali oo dhan familkeeda bas dhibaatada meel gaaran Soomaali oo dhan bay gaartay dadka waxa ku sameeyeen oo dad Soomaalinimada ceebeeyay rag Soomaaliyeed ceebeeyeen danahay dhalinyarada anigoo ku hadlay magaca dhalinyarada Soomaaliyeed meel bay joogan adduunka daafihiisa waxaan leeyahay aad iyo aad baan u xunahay ragnimadeena ceebeeyeen waa sharafteena naga dilaan danahay rag Soomaaliyeed dadkaas in la soo qabto tiirkii la geeyaan ilaani hor tiirka la geeyo mid maaha laba ma ahan gabdhihii wax soo noqnoqday haddii kuwii hadda gabadhii ay bisooladeyn jireen hadda ku sadeen kuwa haddii sharci laga qaban lahaa tiirka geyn lahaa kuwan samayn lahayn marka waa ragan laga talaabo sharci laga qabto waxaan la hadlayaa madaxweynaha maamulka Puntland iyo waxaan la hadlayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Farmaajo in talaabo sharci laga qabto naceebayay wadanimadeena naceebayay damiir Soomaalinimada dad damiir lama ahan كان وأنت لا بشرع لها لقبته إن الله وإنا إليه راجعون إلهي سمري إيمانها كسي فملك يا قراوة يا صومالي ما